السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودر كسو دوادا مدكمدا عشرة كسو ليسنا برشدة لغة إنجليزية. طبعا 10 كان مانتا ووضع الشيكيسي و10 بلوة ضدك بلوة لو تلقلي وحن بلاونا بوق عصب. طبعا وحن سوى 10 بدن وكسو أبسن وذا هذا كان لغة إنجليزية إلا وحن سوى جارسيني أفرتن إيو سدح conversation أما وضع الشيكيسي لغة إنجليزية. إمكن waxaan bilaawi doonaa book la yiraahdo spoken english khaasatan book weyn yahay laakiin waxaan maartay casharkan uu kamid yahay casharada ku saleysan dhanka wada hadalka wada sheekaysiga marka casharkan waa casharkii ugu horeeyay waxaan rajeynayaa inaad ku taxnaan doontaan casharada boogaas sidoo kale casharadii grammarka ama maartay sharciyada luqada ingiriisiga sidoo kale way noo socon doonaan marka casharkan ayaan gudagalaynaa casharka waxa la yiraahdaa marka introduction ama isbarasho ayaa la yiraahdaa sidoo kale erigan introduction waxa la yiraahdaa marka qaar wuxuu noqdaa horodhaca marka horodhacan waa lagu fasiri karaa laakiin hadda waxaan ula jeednaa isbarasho A iyo B ayaa wada hadlaya dabcan waa laba qof marka waxa kaliya lagu dhisay casharka habka uu dhisan yahay kaliya ay matalan labadooda marka eegi ayaa hadlay wuxuu yiri hello iyo hi ama hey wadamada qaarna ay dhahaan intooda waxa loo jeedaa waa salaanta luqada ingiriisiga dadka ku hadla isku salaamana marka my name is Peter magacaygu waxa la yiraahdaa Peter what is your name magacaadu waa maxay marka magacayga qofkan waxa uu bilaabay inuu asiga u isbaro qofka kale waxa uu sheegay magaciisa my name is waa short form بسترف استاس waxa loo jeedaa waa short form marka laakiin waxa loo jeedaa my name is ayaa loo jeedaa marka kaliya waa la soo gaabiyo waa hab loo qoro markii ista ay pronouns ay raacayso marka wuxuu yiri my name is Peter magacaygu waxa la yiraahdaa Peter what is your name waa maxay magacaada marka B wuxuu yiri Janet ay tiri Janet marka kaliya ay ku soo gaabsatay marka my name is waxba ma sii raacin laakiin waxay tiri Janet kaliya ay tiri marka where you from Janet halkee ayaad ka soo jeedaa marka wadankee ayaad u dhalatay ama gobolkeen waa la dhihi karaa hadda kaliya waxa la yiri marka yani wadan lama arbaabin laakiin waxa la yiri xageed u dhalatay I'm from Seattle waxaan ka soo jeedaa Seattle ayaan ka soo jeedaa where you from adna halkeed u dhalatay I'm from Madrid ana waxaan ka soo jeedaa magaalada Madrid bigii wuxuu yiri are you American waxaad tahay Mareykan yes I am waan ahay are you Spanish adna wuxuu yiri marka Spanish miyaad tahay yes I am ay tiri marka aniga Spanish waan ahay marka waxa u jeedaa halkan waxyaabo badan oo la soo gaabiyay habka hadalka inaan arkeen marka labadaas qof ay wada hadlayeen marka ereyada ugu muhiimsan oo hadda casharkan aan ka tilmaami karno hello ayaa kamid ah sidoo kale waxaa kamid ah maaragtay where you from waxa loola jeedaa halkeed ka soo jeedaa marka waxay noqon kartaa magaalo waxay noqon kartaa wadan marka lama arbaabin laakiin waxa la yiraahdaa marka halkeed u dhalatay ama halkeed ka soo jeeda ayaa marka American waxa la yiraahdaa dadka Mareykanka u dhashay Spanish waxa la yiraahdaa dadka Spanishka u dhashay halka dadka dalka Mareykanka la yiraahdaa America laakiin qofku u dhashay la yiraahdaa American halka Spanish Spain la yiraahdaa laakiin marka qofku u dhashay laga hadlayo waxa la yiraahdaa marka Spanish ayaa la yiraahdaa marka casharkii halkaas uu ku yahay waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen waa cashar gaaban waa casharkii koowaad ee buugga aan sheegnay ee spoken english ee buuggan magaciisa marka waxaan rajeynayaa inaad ku taxnaan doontaan fadlan subscribe channelkeena sidoo kale asxaabtaada kula wadaag social media haddaadan la wadaagin si aynu u gaaro casharkan